madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku wajahan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wuxuuna hadda ku sugan yahay meel u dhow halka ay isku hayaan ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland. Cumar Maxamed Soomane ayaa warkan inoo faafahinaya. wararka idaacadda kulmiye ay ka helayso magaalada Laascaanood ee xarunta u ah gobolka Sool ayaa sheegaya in la filayo in maanta magaaladaasi uu socdaal ku tago madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo socdaal ku maraya deegaano ka tirsan bariga Somaliland. nuxurka safarka madaxweyne Muuse waxa uu daaran yahay ka qayb qaadashada socdaal uu ku marayo bariga deegaanada Somaliland waxaana sidoo kale uu horay u soo maray deegaano ka mid ah bariga maamulkaasi. maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa wada sheegtay magaalada Laascaanood waxaana hadda lagu soo warramaya in magaalada la soo dhoobay ciidamadii ugu badnaa ee ka tirsanaa militariga Somaliland kuwaas oo xaqiijinaya amniga magaalada inta uu joogo Muuse Biixi. dhanka kale Puntland wartoosa kama aysan soo saarin madaxtooyada magaalada Garowe taasoo lagu sheegayo in Puntland ay diyaarisay jawaabtii ay ka bixin lahayd haddii uu Muuse Biixi cagta saaro magaalada Laascaanood walow aan la ogeyn waxa ay noqon doonto jawaabta ka soo bixi doonta Puntland. hayeeshee warar imika laga helayo duleedka deegaanka Tukarraq ee ka tirsan gobolka Sool ayaa sheegaya in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku sugan yahay deegaanka Higlan halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan militariga Somaliland. Muuse Biixi ayaa la hadlay ciidamadaasi waxaana uu sheegay inay ka qayb qaataan sugidda amniga isla markaana ay la dagaalamaan waxa uu ku tilmaamay cadawga maamulka Somaliland. saraakiisha maamulka Puntland ee ku sugan gobolka Sool dhankooda wax warakama aysan soo bixin ee ku aadan socdaalka Higlan uu ku tagay madaxweyne Muuse Biixi isla markaana uu gaari doono magaalada Laascaanood. xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta dood kulul waxay ka leeyihiin warbixin lagu sheegay in musuqmaasuq maaliyadeed ay gashay xukuumadda Soomaaliya ee hadda shaqeysa. sidoo kalena xubnaha guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ayaa ku kala qaybsamay warbixinta hortaala kulanka golaha shacabka. wararkii ugu dambeeyay waxa inoo soo koobaya wariyaheena Cabdullaahi Xuseen Canshuur. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa xilligan waxay dood adag ay ka leeyihiin warbixinta guddiga maaliyadda golaha shacabka ay ku eedeeyeen xukuumadda inay lunsatay lacag 40 milyan oo dollarka Mareykanka ah. mudanayaasha guddoonka oo iyagu si aad ah arrintan kaga arrinsanaya ayaa dhanka kale mudanayaasha guddigan oo ka kooban 18 xubnood ayaa 10 ka mid ah waxa ay maanta warqad ashtaka ah ay u gudbiyeen guddoonka golaha shacabka. taas ayaana dood kale oo adag ka dhexdhalisay 8 xubnood ee kale ee guddigan maaliyadda ayaa dhankooda waxay sheegeen inay hayaan caddeemo iyo sawirro muujinaya guddigan oo dhammaystiran oo arrinkan ka arrinsanaya. xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa waxa uu xukuumadda ku eedeeyay in ay lacagtaasi iyo sidoo kale lacag fara badan oo weli uusan shaacin uu sheegay inay ku sameeyeen kaambeyn ku aadan iyadoo ay taasina ay dheer tahay in qoraalka guddigan miisaaniyadda golaha shacabka sidoo kale ay lacag ku bixisay xukuumadda ila maran habaabiyo. sidoo kale waxa uu sheegay in xildhibaanada ka tirsan guddoonka ay iyagu ka soo horjeesteen qoraalka. waxa uu sheegay inay hayaan sawirro iyo muuqaallo ay ku caddeynayaan in guddiga maaliyadda oo dhammaystiran arrinkan ay ka wada hadleen. dhanka kale xildhibaan Cali Cabdi oo ah guddoomiyaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa eedeeyay xildhibaanada duraya warbixintan isaga oo na sheegay inay hayaan warbixinno iyo muuqaallo caddeynaya arrinkan. waxa uu yiri waxaan hayaa saxiixyada iyo sawirrada laga qaaday xildhibaanada waana qalad in xildhibaanada qaarkood ay difaacaan wasaaradda maaliyadda. xildhibaanada ayuuna waxa uu sheegay inay qalad ku jiraan. xildhibaan Cali waxa uu qabaa in xildhibaanada duraya warbixintan ay laluush qaateen. guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ayaa ah mid kala qaybsamay. xildhibaan Cali Xoosh ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ummadda Soomaaliyeed iyo wasaaradda maaliyadda raaligelin laga siiyo warbixinta siyaasadeysan isla markaana aan loo marin habraac sax ah. dhanka kale wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo isagu ka hor hadlay baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay hayaan caddeemo dhammaystiran oo jawaab u noqon kara warbixinta guddiga maaliyadda ee baarlamaanka Soomaaliya. waxa uu soo hadal qaaday 50 milyan ee dowladda Sacuudiga ee Soomaaliya ugu deeqday. waxa uuna xusay in 35 milyan oo lacagtaasi ka mid ah lagu dhammaystiray miisaaniyadda dowladda 15 kalena ay u taalo dowladda oo weli aan la isticmaalin. qoraal shalay ka soo baxay xafiiska hantidhoorka guud ee qaranka ayaa waxaa walaac looga muujiyay qoraalkii hore ee uu soo baxay guddiga maaliyadda golaha shacabka isla markaana lagu sheegay inaan wadatashi iyo xog waraysi rasmi ah laga yeelan hay-adihii loo igmaday kormeerka maaliyadda dalka.
waxaa weli socota dood adag oo u dhexaysa xildhibaanada golaha shacabka iyagoona qaarkood xukuumadda iyo wasaaradda maaliyadda sheegay in lacagahaasi si sax ah ay u isticmaashay halka qaarkood ay tilmaamayaan in lacagahaasi xukuumadda ay u isticmaashay kambeyn iyo sidoo kale in loo adeegsaday waxyaabo ay ku sheegeen xildhibaanadu in lagu dumiyo maamul goboleedyada dalka ka jira. aad iyo aad aad u mahadsan tahay cabdulaahi. wixii warar ah ee ku soo kordha dooda adag ee u dhexaysa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliyana waxaad kala socon doontaan barta aynu internetka ku leenahay radiokulmiya.net iyo sidoo kale Facebooka KNN oo aan idinku soo gudbin doono wararkii ugu dambeeyay baarlamaanka la xiriira. dhinaca kalena waraaqo digniin weerar ah ayaa lagu soo waramayaa in lagu daadiyay magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo halkaasi oo maamulka amar uu soo saaray kadib laga saaray xaasaska iyo sidoo kale caruurta al-shabaab. Cali Ibrahim Cabdullaahi ayaa warkani faahfaahinaya. warar ay heshay KNN ayaa sheegaya in dagaalamayaasha al-shabaab ay warqado digniin ah ku daadiyeen xaafadaha magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. dadka shacabka ayaa waxaa loogu digay inay la shaqeeyaan maamulka degmada Balad Xaawo isla markaana waxa ay sheegeen in ciddii arrintaasi lagu arko tilaabo ay ka qaadi doonaan sida ay KNN u sheegeen dadka deegaanka oo diiday in magacooda loo adeegsado warbaahinta. digniintan ku aadan weeraro ay ka geystaan xarumaha maamul ee magaaladaasi ayaa qayb ka ah qoraalada warqadaha lagu daadiyey gudaha magaaladaasi. sidoo kale al-shabaab ayaa la sheegay in cadaadis xoog leh ay saareen degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii dhowaan maamulka degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa maradu lageen xaasaska al-shabaab ee ku sugan degmadaasi kaasoo ku aadan inay si degdeg u baxaan xaafadaha degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. warar hoose ayaa sheegaya in al-shabaab ay afduubteen qaar ka mid ah gaadiidka ku soo wajahnaa degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. cabsi badan ayaa maanta ka jirta degmada Balad Xaawo taasi oo soo wajahday dadka shacabka ee ku nool degmadaasi. dhowaan ayay ahayd markii dagaalamayaasha al-shabaab ay gudaha u galeen degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo iyagoona weerar ku qaaday saldhigga iyo xarunta degmada Balad Xaawo ee gobolkaasi. xiisad u dhexaysa al-shabaab iyo maamulka degmada Balad Xaawo ayaa aad looga dareemayaa xaafadaha degmada iyo duleedka degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. dhaqaaqyo militari ayaa ka soconaya deegaano u dhowdhow degmada Balad Xaawo kuwaas oo ay sameynayaan ciidamada militariga Soomaaliya. lama oga sida uu noqon doono xaalka degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. cali waa mahadsantahay. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo xalay soo gaaray ama tagay wadanka Uganda ayaa magaalada Kampala ee caasimadda wadanka Uganda wuxuu kulan kula leeyahay dhigiisa dalkaasi Yoweri Museveni. warar ay heshay idaacadda kulmiye ayaa sheegaya in labada madaxweyne ka wada hadlayaan xiriirka labada wadan. Uganda waa dowladda ciidamada ugu badan ee ka joogaan Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM. madaxweynaha Soomaaliya oo markii hore ka yimid dalka Talyaaniga ayaa soo maray Turkiga kadibna waxa uu lugta soo mariyay wadanka Uganda oo kulamo kula leeyahay dhigiisa dalkaasi Yoweri Museveni. dhinaca kalena isbedel ayaa la sheegayaa in lagu sameynayo ciidamada AMISOM ee gudaha Soomaaliya ka howlgala iyadoona sidoo kale taliyaha militariga Uganda uu Muqdisho soo gaaray. maxamed cali maxamed hayno waramo. taliyaha guud ee ciidamada militariga Uganda General David Muhoozi ayaa waxa uu soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana lagu soo waramayaa inuu kulamo la qaatay madaxda ugu sareysa howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. madaxda uu la kulmay taliyaha ayaa waxa kamid ah wakiilka midowga Afrika ee AMISOM Francisco Madera iyo saraakiil ka tirsan Uganda isagoo kala hadlay xaaladda xilligan ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM iyo howlgalka ka socda guud ahaan gobolada dalka. waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka wada hadleen mas'uuliyiintan ayaa waxaa la sheegayaa inay tahay sidii loo yareen lahaa ciidamada Uganda ee ka howlgala Soomaaliya. ila madax banaan ayaa KNN u sheegay in qorshahan uu bilaaban doono sanadka cusub ee soo socda isla markaana ciidamada Uganda la yareen doono. warar kale oo ay heshay idaacadda kulmiye ee Muqdisho ayaa tilmaamaya in madaxda sidoo kale ay ka wada hadleen sidii ciidamada Uganda loo yareen lahaa taa badalkeedana loo kordhin lahaa ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM. lama oga waxa iska bedeli doona howlgalka ay ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda ka wadaan guud ahaan Soomaaliya maadaama la filayo in tiradooda la dhimo. ciidamo badan oo ka socda dalalka Afrika ayaa xilligan waxa ay ku sugan yihiin Soomaaliya iyagoo qayb ka ah howlgalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada dalka. ka bixitaanka ciidamada Uganda ee Soomaaliya ayaa waxa ay qayb ka tahay qorshaha qaramada midoobay ay ku dhimayso ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya.
madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku wajahan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wuxuuna hadda ku sugan yahay meel u dhow halka ay isku hayaan ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland. Cumar Maxamed Soomane ayaa warkan inoo faahfaahinaya. wararka idaacadda kulmiye ay ka helayso magaalada Laascaanood ee xarunta u ah gobolka Sool ayaa sheegaya in la filayo in maanta magaaladaasi uu socdaal ku tago madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo socdaal ku maraya deegaano ka tirsan bariga Somaliland. nuxurka safarka madaxweyne Muuse waxa uu daaran yahay ka qayb qaadashada socdaal uu ku marayo bariga deegaanada Somaliland waxaana sidoo kale uu horay u soo maray deegaano ka mid ah bariga maamulkaasi. maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa wada sheegtay magaalada Laascaanood waxaana hadda lagu soo waramayaa in magaalada la soo dhoobay ciidamadii ugu badnaa ee ka tirsanaa militariga Somaliland kuwaas oo xaqiijinaya amniga magaalada inta uu jooga Muuse Biixi. dhanka kale Puntland wartoosa kama aysan soo saarin madaxtooyada magaalada Garowe taasoo lagu sheegayo in Puntland ay diyaarisay jawaabtii ay ka bixin lahayd haddii uu Muuse Biixi cagta saaro magaalada Laascaanood walow aan la ogeyn waxay noqon doonto jawaabta ka soo bixi doonta Puntland. hayeeshee warar imika laga helayo duleedka deegaanka Tukarraq ee ka tirsan gobolka Sool ayaa sheegaya in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku sugan yahay deegaanka Higland halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan militariga Somaliland. Muuse Biixi ayaa la hadlay ciidamadaasi waxaana uu sheegay inay ka qayb qaataan sugidda amniga isla markaana ay la dagaalamaan waxa uu ku tilmaamay cadowga maamulka Somaliland. saraakiisha maamulka Puntland ee ku sugan gobolka Sool dhankooda wax warakama aysan soo bixin ee ku aadan socdaalka Higland uu ku tagay madaxweyne Muuse Biixi isla markaana uu gaari doono magaalada Laascaanood. sargaal ka goostay ciidanka Somaliland laguna magacaabo Cornel Caare ayaa ku hanjabay in uu weerarayo magaalada Hargeysa sidoo kalena waxa uu faahfaahin ka bixiyay dagaal uu ku qaaday ceel afweyn ee gobolka Sanaag. Shamis Xasan Haruun ayaa warkan eegaysa. iyadoo maalmo ka hor ay ahayd markii sarkaal ka tirsan Somaliland uu weeraray degmada ceel afweyn ee gobolka Sanaag ayaa waxa uu sarkaalkaasi ka warbixiyay dagaalkii ka dhacay Sanaag. Cornel Saciid Cawil Jaamac Caare oo ah sarkaalka weerarka ku qaaday ceel afweyn xilli ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin ka tirsan Somaliland ayaa sheegay inuu weerari doono magaalada Hargeysa isla markaasina uu hayo istiraatiijiyadii uu ku weerari lahaa isla markaasina ay ciidamo ugu sugan yihiin halkaas. marka ugu horeysa waxa la gelayaa dhammaan ciidamada ku sugan halka ee ka tirsan jabhadda la diyaar garoobo heegana la galo waxa la gelayaa dagaal istaba jooga waxa uu malaynina meel kasta oo laga soo galo Hargeysa waa naqaanaa ciidamaduna way ku sugan yihiin hawdkeeda iyo waqooyiga iyo galbeedka iyo bariga gudaheedana way ku noolyihiin. waxa la yiri maska madaxa laga dilaa haddaan caasimadda la weerarin halka ay ku jiraan ragga baabi'inaya dalka siyaasadiisa qoobada ka dhigay haddaan maska laga dilin qaboobi mayso. sidoo kale Cornel Caare ayaa sheegay inuu degmada ceel afweyn ee gobolka Sanaag uu u weeraray sabab la xiriira wasiirro ka tirsan Somaliland oo ku sugnaa waxaana uu iska fogeeyay inuu horinayo colaadda beereedka ka taagan degmadaas. markaan ka warramo arrimaha obreshki target buulaha waxa weeye wasiiradii ku sugnaa ceel afweyn uu ka mid ahaa boos gacanteeduna soo galaya haddii alla yidhaahdo insha allah wax kasta ay ugu sheego gacanku dhiglaha igu sheego nin beela isku diraya ha igu sheego uma socdo beelaanu targetkaydu waxa weeye inaan madaxa ka dilo wasiirada qabqabto saraakiisha qabqabto targetkaygu waka. maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidan uu watay Cornel Caare ay weerareen degmada ceel afweyn ee gobolka Sanaag waxaana Somaliland oo ka hadashay weerarkaasi ay sheegtay inay ku raad joogaan. iminkana anigna magaalada Baydhabo xubnaha guddiga doorashada koonfur galbeed ee cusub ayaa maanta xilalkii kala wareegay xubnihii hore ee xilkaasi hayay munaasabad ka dhacday magaalada Baydhabo. wariyaheena Axmed Saadaq Cabdiqaadir Yarow ayaana arrintan ka wareysanay. aad ma santahay Cabdiqani waxa maanta si rasmi ah loogu wareejiyay dokumentiyadii iyo dhammaanba wixii ay horay u soo qabteen guddigii hore waxa ay ku wareejiyeen guddiga cusub ee dhawaan ay ansixiyeen baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo gudoomiye u yahay xildhibaan Shaar Cumar Beyle
waxaana goobtaasi ka hadlay gudoomiyihii hore Carfa Aadan Ibrahim iyo gudoomiyaha cusub ee xildhibaan Shaacir Cumar Beelle waxayna sheegeen in hawsha laga sii wadi doono meeshii horay ay hawsha ugu wadeen guddiga taas oo ah in dhammaanba musharaxiinta ay qayb ka noqonayaan tartanka aanan jirin cid si gaar ah loo beegsanayo isla markaasna la reebayo guddigana hawshii hore meeshii uu ka waday ay ka wadayaan guddigan cusub dhawaan ay soo ansixiyeen baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxayna sheegeen in berri iyo wixii ka dambeeya ay dhacayso isdiiwaangelinta musharaxiinta kadibna ay sii wadi doonaan waxyaabihii kale ee u haray ee ah in musharaxiinta ay jeediyaan khudbadahooda ku aadan sidii ay waxqabadkooda usoo bandhigi lahaayeen baarlamaankan ay kaga hor hadli lahaayeen ugu dambeynna 5 bisha soo socotana inay dhici doonto doorashada madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya. dhanka kale diyaargarowga sidee looga dareemayaa magaalada Baydhabo ee ku aadan doorashada aad ma santahay diyaargarowga si weyn ayaa looga dareemayaa magaalada Baydhabo ee gobolka Baay gaar ahaan xarunta madaxtooyada marka aad eegto waxa ku soo kordhay isbedel dhanka amniga waxa la keenay ciidamo cusub oo ka socda nabad ilaalinta midowga Afrika misom qaybta Ethiopia ciidamadan horay ma aysan u joogi jirin xarunta madaxtooyada waa ciidamada Ethiopia hadda la keenay waa ciidamo cusub waxaana la keenay shalay gelinkii dambe ayaa la keenay xarunta madaxtooyada koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kale waxaa jira ciidamo kale oo cusub oo iyaguna ciidamada federaalka ah ee dawladda Soomaaliya oo cusub ayaa iyaguna